madaxweynaha jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iiraan Mas'uud Pezeshkian waxa uu jawaab kulul oo dhamaca uu siiyay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo isku dayay in uu ku kajamo xaalad dhib leh oo ka taagan gudaha wadanka Iiraan waliba marka la fiiriyo dhinaca nolosha aadanaha iyo waliba dadka halkaasi ku nool qaybo kamid ah Dahraan waxa uu yiri dalka Iiraan haddii ay shacabkiisu iska saaraan xukunka dictatorka iyo kalitaliska waxaan meesha ka saari doonaa dhibaatooyinka ay wajahayaan dadkaasi waxaana noqon doonaa dawladda ugu horeysa ee u gurmata hadalkaasi waxa yiri Netanyahu laakiin madaxweyne Pezeshkian ayaa xaqiiqo dhaba oo aan laga warwareegan oo xitaa madaxweyne Carbeed ama boqor Carbeed aanu sidaa oran karin Netanyahu si toos ah ugu dhiibay haddaba sidee qubarada diblomaasiyadda u fasirayaan hadalkan maxayse tahay Israel waxyaabaha ay ugu soo gabanaysa dalka Iiraan la leeyahay shacabka si aan garab iyo kaalmo idin siino waa ina xukunka qamani u wan yahay aad meesha ka saartaan warbaan idinkaga hayaa oo caawa barnaamijka Barrow Show qaybtan aan ku faaqidi doona saaxiibayaal inta waxa raaci doona ninkii ahaa Cali Laarajani oo ah gudoomiyaha guddiga amniga qaranka sare ee dalka Iiraan waxa uu gaaray gudaha jamhuuriyadda Lubnaan halkaasi oo waayidii ugu dambeysay ka soconayeen xaalad la doonayo ururka xisbiga in looga qaado hubka iyo waliba dabaabaadka kala duwan oo ay haystaan hasaatee Iiraan hadda waxay u muuqataa in jawaab adag ay siinayso dawladdaasi Lubnaan ra'iisul wasaaraha wadanka Lubnaan oo isna naf isgaliya maanta ayaa yiri annagaba kama hadalno siyaasadda gudaha ee dalka Iiraan maxay tahay sababta Iiraan ay u doonayso in siyaasadeena gudaha ay ugu milanto hasaatee waxa la leeyahay xaaladdu sidaa moodeen wax ka fog ayaa jira waa sheekadii ahayd doqontu waxay leedahay 12 indhood 11 kamida walaalkeed ayay ku aragtaa caawa arrintaas oo aan biyo la marin marka diblomaasiyad ahaan loo fasiro waxay ka taagan tahay wadanka Lubnaan waxa koonfurta wadankooda ka dhacaya ma arkayaan laakiin dhaqdhaqaaqyada Iiraan waa arkayaan warbaan idinka leeyahay oo aragtiyo badan ay ku dhex jiraan sheekadaasi oo runtii u baahan in daboolka laga qaado hase ahaatee waxaa dhinaca kala hadlay oo aad barnaamijka ku daawan doontaan ninka la yiraahdo Eyal Zamir oo ah taliyaha guud ee ciidamada Israel waxa uu leeyahay wax kasta oo dhaca ma aqbali doono koonfurta Lubnaan cid hub wadata inay halkaasi timaado amnigeena ayay qatar ku noqonayaan ayuu yiri jawaabna waan ka bixinaynaa bal muxuu coon oo madaxweynaha ah iyo waliba ninkan la yiraahdo ee ra'iisul wasaaraha maxay u arkila yihiin hadalka ka imaanaya ninkan la yiraahdo Eyal Zamir oo ah taliyaha ciidamada qalabka sida Israel mase sheekadu waa abo ninka weyna iska qaban karaaye kan yariga celi barnaamijka ayaan ku faaqadayaa qodobadaasi oo aan si toos ah ugu dul istaagi doono wararka siyaasadda amniga iyo diblomaasiyadda bariga dhexe UNRWA waxay leedahay ku dhawaad 1 milyan oo caruur ayaa laga joojiyay tacliin iyo waxbarasho inay aadaan waa hay'adda qaramada midoobay sida gaarka ula socota arrimaha Falastiiniyiinta xaaladdoodana si joogta gacanta ugu haysa Cabdicasiis Barrow ayaan ahay akhyaarta nala socota ee qubanaha Barrow Show-na waa daawanaysan qaybta koowaad ee caawa oo 13 ay tahay Agoosto sanadka 2025 meel kasta oo aad joogtaan soo dhawaada ayaan idin leeyahay YouTube-ka ku soo biiro subscribe saara aad baad u mahadsantiin ma ogtahay in dhakhtar Shaafici aadan dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba wuxuu heega kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar haddii aan ku hormaro doodaha culus ee ka dhex taagan Israel iyo Iiraan ayaa waxay noqonaysaa tan ugu weyn ee caawa warbaahinta adduunku ay sida la yaab kale u falanqeynayaan ninka la yiraahdo Mas'uud Pezeshkian oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iiraan ayaa caawa hadal dhamaca dhagaha ugu shubay ra'iisul wasaaraha Israel oo dhalanteed waaweyn iyo humaagyo aan sax ahayn istusaya inuu xaqiiqo u bedelo
waxa uu leeyahay madaxweynaha aan intaan u imaan basashkian si aad sheekada u fahantaan. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa hadlay saacado ka hor waxana uu yiri waxaan dareemaynaa oo aan la damqanaynaa shacabka Iiraan ee la dulmayo ee gaboodku ay ku dhacayaan. Waan gartay sababta aan ula dhibaatoonaynana waxay tahay dadkaasi xitaa waxay leeyihiin biyo ay fiiqsadaan oo ay haraadka isaga gooyaan iskabada mid ay raashin ku kariyaan iyo mid ay ku meertaan intaba. Sababtu waxa uu leeyahay mas'uuliyad darro ka timid maamulka Iiraan ee Khamenei uu ugu weyn yahay ayaa sabab u noqday in wax dan iyo heella ah aanay ka yeelan shacabka qarankooda. Sidaa daraadeedna dadkii la waayay biyo nadiif oo ay isticmaalaan xaaladdu ay ku adag tahay. aad baan ula damqanaynaa buu yiri haddii aan nahay reer Israa'iil. waa sidoo hadalka leeyahay Netanyahu. waa uu sii hadlay wuxuu yiri waxaan diyaar u nahay dadkaasi inaan u gurmano oo aan biyo nadiif ah gaarsiino oo aan garab iyo heel u noqono intaba. laakiin taasi ma dhici karaysa buu leeyahay. waxa haysta xukun dictator ah loona baahan yahay meesha in laga saaro Khamenei iyo waxa la socda ee siyaasadda madhalayska ah wata. intaas markii uu yiri waxa uu sidoo kale raaciyay Israa'iil waa dal runtii gaamuray horumar iyo tiknoolajiyada ku tallaabsaday biyaha nadiifka ee dadka cabaana caalamka ugu horeeya ayuu yiri. haddii marka aan fursad inoo siiyo dadkaasi inaan garab istaagno waan garab istaagaynaa ayuu hadalkiisa ku yiri. ujeedada arrintaasi uu ka lahaa waxa la yiraahdaa luuqadda jilicsan ee diblomaasiyadda. Soomaalida waxay tiraahdaa dawladda luuqadda ciyaalka xaafadda haddii aan ku hadlo. dawladdii Iiraan ahayd Netanyahu fuusta ayuu u riixay sidaasaan u qaadan karnaa markaan luuqadda caadiga ah ku fahno. laakiin ciyaar weerar celina oo diblomaasiyadeed oo dhamac ah oo xaqiiqo taabanaysa oo ka janka ka fog ayaa ninkii Basashkian oo malaha xanaaqsan hadalka ninkan uu sii daayay waxa uu ka qaaday daboolka. waxa uu leeyahay Netanyahu way wanaagsanaan lahayd haddiiba sida aad wax u garanayso ee garashadaada u jirto. laakiin balaadi isweydii Iiraan oo kumanaan mayl ku jirta ayaad leedahay biyo iyo booyada ayaan u soo rarayaa ee xukunkiina rida adigoo caalamku uu kula yaaban yahay oo gaboodfallada iyo gumeynta aad ku samaysay dadka reer Gaza ee aad u ballaaran yihiin. bal horta marka hore isku xisho ee carruurta dhimanaya hooyooyinka balanbalay dadka asqaysan oon dartii iyo kuwa gaajada u go'ayaba u ogolaa nolol inay helaan. kada go'doominta iyo waxaad samaynayso Iiraan waan isaga iman doonaa ayuu yiri. hadalkan ayaa waxa uu noqday mid Netanyahu ka dhigay afka inuu joogda gabo oo xitaa uu ku adkaysan waayay inuu wax kale oo jawaab u bixiyo. sababtu waxay tahay hadalkan waxa uu noqonayaa hadalkii ugu adkaa ee loo jeediyay Israa'iil. waxana ay muujinaysaa marka si dhab loo fiiriyo in xaqiiqadii carabtu ay ka meermeeraysa la taabto. nimankan la yiraahdo Iiraan waayidii ugu dambeysay marka la fiiriyo isbedelada ka soconaya gobolka bariga dhexe haddii Khamenei uu noqon lahaa Basashkian Ali Larijani Araqchi ninka la yiraahdo Ismaaciil Baqai inta kala duwan oo madaxda Israa'iil la yiraahdo Iiraan oo hadda warbaahinta ka hadasha nin kasta waxa uu soo deynayaa hadal dhakafaara marka warbaahinta uu la kulmo. taas oo la leeyahay war waxaan xagee waxaan oo hadal iyo mucjiso ku hayeen. cidda labaad oo dunida islaamka marka la fiiriyo sida uu hadli karta waa ninka la yiraahdo Erdogan. dawlad kala soo baxdo iyana la yiraahdo Pakistan oo ninka la yiraahdo Khawaja Mohammed Asif oo wasiirka amuraha dibadda ee Pakistan uu isna ka kaftamin ka hadalka arrimahan oo kale. Caasim Munir oo taliyaha ciidamada guud ee Pakistanna waa kii dhahaya annaga haddii qatar nuclear aan dareeno waxa uu maharaya waa la israacaya. arrimahaas marka dawladaha u hadlaya laakiin se u hadlaan carabta ma taqaan. markuu Mohammed bin Salman hadlayo wuxuu leeyahay nabadaan rabnaa waan diidaynaa waxa Israa'iil sameynayso laakiin lama dhihi karo ni waxaas oo ku qaldantaa ma dhihi karaan. generaalkii gaamuray marna militariga hogaaminayay marna wasaaradii gaashaandhigga haystay haddana madaxii guud ee wadanka Masar ahaana waa nin labac badan oo isna meel loo raaco waa la waayay. ninka la yiraahdo Mohammed bin Said ee boqorka ka wadanka la yiraahdo Isutaga Imaaraadka Carabta haddana madaxweynaha ku magacaaban isaga ka sheekaynba ma laha warkiisu.
arrimihii marka gobolka bariga dhexe hadda waxay u muuqanayaan in la isku muuqanayo laakiin Iran ay noqotay dawladda xaqiiqada iyo waliba biyo kama dhibcaanka waxa ay sii daynayaan dhinaca Lubnaan baan soo fiirinayaa abwaankii Soomaaliyeed baa laga hayay doqon ka waran yaani kula dhalan haddii ay kula dhalata ka waran yaani ku dhawaan haddii ay ku dhawaata ka waran yaani xoog badnaan hadda arrintaasi dalkan la yiraahdo Iran ayay haysataa dawladihii carbeed markii aad fiiriso isha kaliya ay wax ku arkaan waa Iran laakiin waxyaabaha gudahooda ka dhacaya iyo hareerahooda iyo dawladahan kala tagay ma dareemaan arrintaasi maxaan uga dan leeyahay nin la yiraahdo Nawaaf Salaan oo ah ra'iisul wasaaraha dalka Lebanon ayaa maanta waxa uu soo dhaweeyay ninka la yiraahdo Cali Laarajani oo ah hogaamiyaha guud ee amniga qaranka wadankaasi Iran hogaamiya iyo waliba safiirka Iran u jooga wadanka la yiraahdo Lebanon oo la yiraahdo Mujtaba Amani labada nin waxay la kulmeen Nawaaf Salaan ujeedadu waxay ahayd bal inay kala hadlaan arrintan xisbiga lagu hayay la leeyahay hubka laga dhigayaa iyo niman dagaalami kara maaha iyo dawladda hubka qaadanaysa iyo ayada Ciraaq waydan dood noocaas ah ayay banaanka keenayeen marka arrintan waxay aragtay dawladda Iran inay tahay darbi ku xayndaabnaa amnigooda oo la rabo in la jabiyo si loo nugleeyo marka xisbiga ayaa la hadlay Naciim Qaasina hadlay wuxuu yiri waxa suuragal maaha hubna dhigamayno annagana ujeedadana waxay tahay wadankan inaan ka shaqeyno karaamo umadeed iyo sharaf baan huwanahay niman halgamayaan nahay suuragal maaha doodii marka waa cuslaatay Cabbaas Caraaqji hadlay oo wasiirka amuuraha dibadda dalka Iran goorsiyo horeysay waxa sidoo kale hadlay ninka la yiraahdo Ali Akbar Walayati oo isna kamida raggan sarsare ee amniga ka shaqeeya waxa sidoo kale hadlay ninka la yiraahdo General Masjidi ninka la yiraahdo waa hadlay oo dhamaantood Iran waxay ku yiraahdeen war dawladdan Nawaaf Sharif iyo Joseph Aoun waxay u jeedaan nimankaas xisbiga ma ahay dawladda Iran ayay rabaan inay darbi ku dalooliyaan ujeedadana ay tahay in loo soo dhaxmaro marka waa niman lagu soo dhax tahriibay doodii marka halka gaartay nimankii Lubnaan ahaa inay gar dhigtaan meeshii laga rabo waxay leeyihiin war annaga noo jeedaanba annaga tiina kama hadalnay maxaa teen uga hadashaan waxa la leeyahay marka Laarajani wuxuu leeyahay war idinkoo la idinku soo socdo annaga wax ma aragnaa dhibaatana iduguma qabi lahayn inaan annaga burburno danteedii ugu jirta maxay tahay nimankan dhaafa ha shaqeeyaan annaga soo dirnay idinkoo dhibaateedin kuma aha joojiyo marka waxay leeyihiin maya nimanka hubka laga dhigaya because dhibaatooyinka ay geysanayaan iyo annaga dhibaato nagu taa marka waxba inaga ma keen galin dadkaas meesha ku baaba'aya qasana wax dana oo aan ka leenahay ma jiraan doodii marka maanta aad ay u adkaatay si weyn ayaa nuxurka markaan u eego nimanka la yiraahdo Lubnaaniyiintu ay doodooda banaanka u soo dhigaan marka waxay leeyihiin wax dooda oo annaga aan qabno kala ma jiraan ujeedada waxay tahay Iran ay nimankan iyo annaga isu keendaaya hubkan ka dhigaynaa Iran waxay leedahay nimanka ma aragtaan waxa loo socdo waa annaga marka waa doqontii kula dhalatay ku dhaweyd inkastoo ay tabar daran tahay marka dooda Lubnaan lagu fasiro isla wararka Lubnaan aan sii dul taagnaanaya ninka la yiraahdo Iyaal Samir waa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Israa'iil hadal la yaab leh ayuu sii taayay waati aad Lubnaan lahayd ma hayno hubkan dhigaynaa meeshii laga rabay inay Iran garawdo ninka waxa uu leeyahay iyadoo waliba kulankii uu socdo annaga waxaan rabnaa koonfurta Lubnaan in aanay wax ka tara ka iman warkaas waa cad yahay haddii aan dareeno cid kasta oo hubwada meeshan annaga waa noo banaanta Iyaal Samir ku jawaabay kaaga daranka dawladda Lubnaan ahayd maba ka jawaabaysa doodan marka Soomaha doqon adiga ku ulweyn oo kaliya kula dhalatay balaanaga taliyaha waxa uu leeyahay taliyaha guud ciidamada qalabka sida ee Israa'iil ninka la yiraahdo Iyaal Samir ayaa arbacada maanta kormeer ku sameeyay baa la yiri deegaano ku yaala koonfurta Lubnaan deegaanadii u tagay dhulka isaga ma la ogoyaa
waxana uu u sheegay in ciidanka Israa'iil ay gacanta ku hayaan kadib dagaalkii ugu dambeeyay ay la galeen ururka xisbiga. ciidamadii militariga ee Lubnaan xagee jiraan adiga ba isweydiiyay. booqashada taliye Yaal Samiir ayaa ku soo beegantay isla maanta uu magaalada Beirut gaaray Cali Larijani xogayaha golaha sare ee amniga qaranka oo safar rasmi ah ku yimid Lubnaan kana yimid dalka Ciraaq. Larijani ayaa kulamo la yeeshay madaxweynaha dalkaasi Joseph Aoun iyo ra'iisul wasaare Nawaf Sultan iyo gudoomiyaha baarlamaanka dalka Lubnaan ninka la yiraahdo Nabih Berri. saddexdan nin ayuu la kulmay. Israa'iilna Yaal Samiir booqashadiisu iska wata. warbixin ka soo baxday ciidamada Israa'iil ayaa lagu sheegay in taliyuhu ay wehliyeen saraakiil ay ka mid yihiin taliyaha guutada 91aad Yuval Ges isla markaana uu booqdo xare ay ku sugan yihiin koonfurta Lubnaan halkaas uu kula hadlay cutubyo ka tirsan ciidamada. Rigliya la soo galiyay waa la fiiliyay ciidamadii waa la hadlay. maxaa lagu yiri marka? Yaal Samiir waxa uu leeyahay waxaan bedelnay xaqiiqada amniga ee waqooyiga. dib dambe looma noqonayo mana ogolaan doona hanjabaad cusub in ay soo baxaan. marka wuxuu leeyahay halkan maba laga laabanayaba ama Lubnaan ay qayliya ama jooga. oo si hadlay ninkan wuxuu intaa ku daray waxaan ku jirnaa dagaal ballaaran oo ku socdo meelo kala duwan. haye waxaynu booqanaynaa waxaynu ku dabaqaynaa buu yiri aragtideena si ay ula jaan qaato qadarta weyn ee halkaasi taala. waxaan joognaa dhammaan jihooyinka dagaalka waliba caqabado badan ayaa naga horeeya oo na hortaagan. taliyaha ayaa sidoo kale shaaciyay baa la yiri in Israa'iil ay fulisay 600 oo weerar oo cirka ah tan iyo markii la saxeexay heshiiskii xabad joojinta 27 November 2024 lala galay xisbiga. wuxuu intaa ku daray in ka badan 240 qof lagu dilay weeraradaas. isaga sheegay Lubnaan ma sheegayso. wuxuu leeyahay haddii la rabo meesha nabad inay ka timaado waa inay hubka iska dhigaan kooxda la yiraahdo xisbiga. isla wararka bariga dhaxaad yaan fiiriyo hay'adda la yiraahdo UNRWA ee qaramada midoobay ee arrimaha Falastiiniyiinta qaabilsan ayaa tilmaantay in 1 milyan oo caruur oo Falastiiniyiin ah aan loo ogolayn inay waxbarasho aadaan. xaliili halka jooga waxaad sugaysaa waqtigeena iyo goorta bambaanooyinkooda haleeli doona. waayahay khiyaaray qaybta koowaad ee caawa iyo qubanaha Barrow Show intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. meel kasta oo aad joogtaan waxaan idin leenahay ku soo dhawaada YouTube-ka oo subscribe saara. aad baad u mahadsantihiin.